بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتون أكسن إذا لهانتي بداوض يال صاحب يال هالكني وبرتان كلنا يوتيوب كسيدو كلا برتين فيسبوك أيضا مقال كان توسو قداو دونتان مقال كان وحانو إذا يكسو بندقينا اسبدل دنك أودأه أو مركاسي لتابكره وأي سميين عيد مدى حوغا دلكا الصوماليات وحانا اسبدل كان لبنتي سيقوشي سيسكاله إسلامر كان أي سعيد لو داقين دولتي هوري الصومالية nabad iyo nolol ee ka horeysay dawladdan iskamana dhihi doona daawadayaal xaqiri mayno dawladda cusub iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ee hadda jooga laakiin waxa xaqiiqdu ay tahay ayaynu taaban doonaa haddii Allah wadale raali ka ahaado qofka insaanka caadiyan haddii uu wanaag sameeyo isaga oo maqan ayaa xataa wanaagiisii markaasi iyo marihii wanaagaas la guran doonaa haddii tusaale yar aynu ka soo qaadno qofka muslimka ee muuminka ah haddii uu acmaashiisu ay wanaagsan tahay oo uu la baxo sadaqo jaariya inta uu nool yahay ama waxyaabo badan oo wanaagsan uu sameeyo qofkaasi xataa haddii uu dhinto oo ay adduunka iyo asagu ay markaasi ismacsalaamayaan oo uu geeriyoodo waxaa la sii munaafacaadsadaa waxyaabihii uu bixiyey ama wanaagii uu sameeyey sida haddii uu masaajid dhisay haddii uu ceel qoday haddii uu iskool dhisay haddii uu dugsi quraan dhisay iyo waxyaabaha la midka ah wax kasta oo qofkaasi wanaaga uu sameeyey dabcan isagiina ajir ayaa u soconaya waana wax wanaagsan oo dhaxalgal ah oo la taabo karo ayuu qofkaasi ka tagay markasta oo la soo xasuusto waxa lagu soo xasuusanaya raadadkii wanaagsanaa ee qofkaasi uu ka tagay haddii qofku ummadda dhibi jiray oo dadka dhibaatay jiray oo dadka dhici jiray oo markaasi ummadda ihaano ku ahaa ama qof ummadda xadgudub ku haya uu ahaana waxa uu noqonayaa qof markasta la soo xasuusto xumihiisii haddii dadka xoolahooda uu dhacay uu cunayay uu boobayay ku sameeyay ku tarifal awoodeed hadii uu dawladnimada ama siyaasadda xataa uu dadka ku dhibaateynayay mar walba waxa la soo xasuusanayaa qofkaas iyo ciladihii uu kaga tagay adduunka hadii uu hogaamiye ahaa iyo hadii uu shakhsi caadi ahaa haduu ganacsado ahaa dhigmiirada haduu qofku wax kasto ahaaba taariikhda ayaa dib u xusaysa markastana waa la malcisanayaa haddaba waxaa jirta mararka qaarkood markii aad wax wanaagsan samayso adiga oo maqan oo ka maqan wixii markaas hadii aad hogaamiye ahayd tusaale ahaan siyaasi ah oo muddaxileedkaaga ku dhamaaday isla markaana xilkaas macsalaamaysan hadii aad ahayd macallin jaamacad muddo soo dhigay deetana jaamacaddii ka tagay oo baro fiican ahaa hadii aad ahayd macallin quraan oo dugsi dhigayay ama hadii aad ahayd imaam masaajid ama wax kasta oo wanaagsan oo qofka bini'aadanka tusaale loogu soo qaato waxa markaasi uu qofkii meeshii uu ka tagay ay noqonaysaa meel laga tago sidaas waxa la mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaligiisi waxba ma uusan markaasi qabteen rag iyo rabbiba wuu lahaay iyo ragii garbiisa ahaa iyo dawladda isla soo shaqeeyeen iyo saraakiishii isla soo shaqeeyeen iyo cid walba isla soo shaqeeyeen waxa ay u muuqanayaan kuwa ka tagay dhaxal aad u wanaagsan marka laga yimaado arinta kacdoonka dadweynaha ay ku aadala dagaalanka argagixisada al-shabaab oo hadii uu si wanaagsan u sii miradhalo sidaasna dhabada uu hayo laftigiisu madaxweynaha Soomaaliya haatan jooga Xasan Sheikh Maxamuud uu door ka qaadan doono amaanteeda haddana daawadayaal wax kasta oo ku aadanay dawlad dhis iyo sidoo kale dhismo dawladnimo marka la eego madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha haatan oo tusaalaha ugu fudud ee la soo qaadan karo ah xilligii muddaxileedkii hore maadaama uu madaxweyne Farmaajo isagu talada kala wareegay mar saddexaad haddana ay dhacday in madaxweyne mar labaad haddana ay dhacday in madaxweyne Farmaajo xilka ku wareejiyo ninkii uu shalay xilka kala wareegay waa laba tusaale oo markaasi aad u fudud madaxweyne Farmaajo 2017 markii la wareegay xilka waxa la sheegaa in lagu wareejiyay khasnad faaruqa wax dhaqaalaha aysan ku jirin iyo dal baabaasan oo musuqmaasuq uu markaasi hareeyay ama uu la degay dhinac walba marka la eego iyo wasaaradda wada haawanaya iyo sidoo kale dal ciidankiisu 9 bilood oo mushaar ah ay tabayaan oo laga dhacay xildhibaano baarlamaan oo sidoo kale 9 bilood iyaguna bila mushaar ay shaqaale dawladeed ka soo bilow ilaa qofka xaqaha ah ee xafiisyada xaqa ilaa iyo qofka ugu sareeya taabadelkeeda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu talada waddanka la wareegay dhismo dawladeed oo ka gedisan midii 2017 uu wareejiyay dal ciidankiisu ay mushaarka bil walba 25 ilaa 26 u soo xaadiraan dal ciidamo badan ay u tababaranayaan oo ay dalka dibadiisa ugu maqan yihiin waliba si secret ah loo soo tababaray maadaama reer galbeedka waddankeena lugaha ay ku dhaganaayeen dal shaqaalaha rayidka iyo dhammaan golaha wasiirada xildhibaanada iyo cid walba oo shaqaalaha dawladda ay mushaarkooda si toos ah u qaataan 6 bilood ilaa 10 bilood ee soo socdana ay helayaan mushaarkoodii oo ay u sii keedsan yihiin dal khasnadihiisii ay buuxaan oo aysan ahayn kuwa maran isla markaana lacag badan ay u taalo dal
la dhisay xarumihii danta guud oo ay ka mid yihiin garoomadii kubadda lagu ciyaarayay sidoo kale xarumihii kala gedisanaa ee dowladnimada muhiimka u ahaa sida tiyaatarkii qaranka iyo arrimo kale oo weliba iskaa wax u qabso lagu dhisay dal dhowrkii biloodba mar ciidamo loogu qaadayo dalka Turkiga dal aan inaba caadi ahayn oo soo kabasho dardar leh ku dhaqaaqaya dal dhaqaalihiisu soo kobcayo oo miisaaniyadiisu haddii ay ahayd 200 iyo wax yar oo milyan ay haatan madaxa sii gelinayso 1 bilyan ayuu la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba waxyaabaha guusha markaynu intaas falaqayn guud isaga imaano oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la mid yahay qofka acmaasha wanaagsanaa sameeyay ee booskii uu hayay baneeyay amaba ay tii alla ku timid ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo ayaa waxaa ka mid ah daawadayaal in kor u kacay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka la eego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameeyeen kor u kac ciidannimo oo aan inaba caadi kor u kac dhanka ciidanka dhanka awoodda ah oo aan inaba caadi ahayn shirkadaha daraaseeya arrimaha militariga ayaana soo saartay waa shirkad ka mid ah shirkadaha daraaseeya arrimaha militariga ayaa soo saartay liiska cusub ee sanadkan oo ay ku qiimeynayso awoodda militariga ee wadamada caalamka Soomaaliya ayaana soo gashay boos ka duwan kii ay ku jiri jirtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay taas oo ay kor u kacday warbixinta shirkadda Global Firepower waxay ku salaysan tahay xog markaasi la heli karo marka ku aadan dalka lagu sameynayo daraasad bogga ay internetka ku leedahay shirkadan ayaa dhawaan lagu sheegay in ilaa iyo 60 arrimood loo cuskaday soo saarista natiijada ugu dambaysa ee lagu soo bandhigo sida ay dalalku ugu kala awood badan yihiin dhinaca militariga isbedel aad u weyn ayaana ka muuqata kaalmaha ugu sareysa ee liisaska iyadoo sida guud ay wadamo badan ay sameeyeen horumar halka qaar kalena ay hoos u dhaceen 10 wadan ee ugu sareeya ayaa markaasi ka duwan kuwii liiskii soo galay sanadkii la soo dhaafay 2022 marka laga soo tago afarta dal ee sanad walba haya hogaanka Mareykanka Ruushka Shiinaha Hindiya waxa 2023 markaasi hoos u dhac sameeyay Japan oo soo gashay kaalinta 9aad iyadoo sanadkii hore ku jirtay kaalinta 4aad oo haatan Hindiya ee ciyaaristay Pakistan oo booska 9aad kasoo markaasi dalacday ayaa haata ku jirta booska 7aad oo ay markaasi ka baxsatay ama ay ka ciriirsatay Faransiiska sidoo kale waxa xusid mudan in Ingiriiska oo sanadkii hore ku jiray kaalinta 8aad oo haatan sare uga soo kacay oo uu galay kaalinta 5aad liiska cusub ee dalka ugu sareeya sida isugu xigaan 10 wadan ee ugu horeysa ayaa sidan ah Mareykan 1 Ruush 2 Shiinaha 3 Hindiya 4 Ingiriiska 5 Kooriya Koonfureed 6 Pakistan 7 Japan 8 Faransiiska 9 Talyaaniga 10 Turkiga oo 2022 ku jiray kaalinta 13 ayaa sanadkan sameeyay horumar aan sidaas u sii weynay waxa uu galay kaalinta 11aad isku darka 145 wadan ayaa lagu soo bandhigay markaasi liiskan oo la soo saaray bilowgii sanadkan Soomaaliya sanadii la soo dhaafay Soomaaliya waxay ahayd dal military ahaan markaasi ugu awood yar qaaradda Afrika Kosovo iyo Iceland oo kaliya ayaa ka hooseeyay dhinaca dunida inkastoo ay markaasi labadii wadan ee ay ka awood yaraa Soomaaliya waa Iceland iyo Kosovo ay sare u kac sameeyeen sanadkan waxaa jira dhowr wadan oo hadda markaasi uu ka sare martay dawladda Soomaaliya marka la eego dhanka dhismaha ciidankeeda sida muuqata liiskan kana muuqata 3 dal oo ay hogaaminayso Soomaaliya ayaa kala ah Moldova oo ku yaala qaaradda Europe Benin oo markaasi ku taala galbeedka Afrika iyo sidoo kale Bhutan oo ku taala dalka markaasi dal dhaca koonfurta ee qaaradda Aasiya Soomaaliya ayaana booska 42aad ugu jirta liiska celcelis ahaan oo liiska celcelis ahaan wadamadan gaaraya 145 wadan waxayna markaasi dawladda Soomaaliya u muuqataa in ay sare u kacday marka la qiimeeyo xaaladda inkastoo wadamadii ka hooseeyay shalay ay sare mareen oo taasi ku aadan tahay kobaca dhaqaale iyo miisaaniyadda ay u qorsheeyeen wadankooda haddana Soomaaliya ayadoo haatan waxay muujisay ama waxay sameysay dadaal caadi ahayn oo horumar dhanka sare u kaca ciidamada ah sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waa 12,368,248 qof walow tiradaasi aad u yartahay marka la eego tirada dadka Soomaaliyeed tirada dadka ku beeri kara ciidamada waxa lagu qiyaasay 2,848,837 ruux oo dhigma 4% dadka Soomaaliyeed oo kamid ah markaasi 4% guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 1,700,902 qof ayaa awood buuxda u leh ayay dhaheen inay kamid noqdaan ciidanka xoogga dalka
waxa ayna tirada ciidanka ku sheegeen 17,500 askari taas oo loo badinayo inay been tahay tirada ciidanka intay ku qiyaaseen iyo sidoo kale markaasi tirada guud ee shacabka Soomaaliyeed oo haatan 20 milyan madax sii gelinaya kuwa jamhuuriyadda guud ahaan hadii la isku daro shanta geeskana ay 30 milyan ay ka badan yihiin sida oo aragto fikirkaaga hoos noogu reeb